وفتي وهجامني وزير دولها وزارة arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Maxamed Mixile Boqorey oo weheliyo safiirka China u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo booqasho shaqo ku yimi Soomaaliland ayaa saaka subax hore u jarmaaday gobolka Saaxil magaalada Berbera waxaana kormeer ay ku tageen marsada dekada Berbera waxayna kulan la qaateen mas'uuliyiinta heer gobol iyo maamulka dekada Berbera waxayna kormeer indhayn ku soo mareen marsada dekada Berbera halka ay maraakiibtu ku soo xidhaan iyo kuwa la rarayo xoolaha bagaashka iyo baabuurta iyo badeecadaha kala duwan ee dekada higeysta kale halka iyana waxay soo kormeereen qaybta ugu ballaaran ee la dhigo kontiinarada oo ay dhisayso xukuumadda Soomaaliland هذا السودوين ولا السودوية سفير كواحد وقرين كهالي ما يركب مجال بربرة عبد الشكور محمد عدن وحكور رميسيد السودوين يعني يوحقوت ك لتصابن كرو كهير جاي قبل كساحل سفير كتشينا هذا كتشينا كالسعودة إنك صوب وغير كنا نشارك إن هي سوماليا وقابل سن تشيناها وحنقول فرح سنة هاين واركو سوماليان يهرمر كذا دبلومات كاي كتلا فستي iyo khayraadka dabiiciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhigay iyo inay u baahan tahay in laga faa'iideysto oo dawladaha caalamku ay u soo jeestaan oo investment ay gashadaan marka waxaan leenahay Safir soo dhawow Maariya dekada Berbera isaguna qaabilaad kadib hadalka jeediyo soo dhaweyn ayaa tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay ama u danaynayo inay China door ka qaadato horumarka ballaaran ee ka socda gaar ahaan gobolka Saaxil waxaan maanta halkan aynu joognaa dekadii Berbera gudaheedii waliba qaybtii inagu aynu dhisanay baynu dhex joognaa awoodeena aynu inoo saamaxday inaynu dhisano safiirka iyo waftiga la socda Master Warsame Geeljire iyo saaxiibadii waxaan ku soo dhaweynayaa inay maanta inala joogaan dekada Berbera dekadan Berbera oo ah dekad qadiima oo muddo dheer adduunka ka caan ahayd iminkana magaceedii dib ugu soo noqday inuu ka caan noqdo iyo inay noqoto dekadaha ugu horeeya geeska Afrika ayaynu maanta ku soo dhaweynaynaa dawladda China waxaan rajaynaynaa inay wax badan oo horumar ah inagala qayb gali doonto oo ku saabsan dekada haday tahay sourceska kale inuu leenahay haday tahay free zonka iman doona airportka shidaalka waxaan rajaynaynaa inay wax badan waxay nagala qaban doonaan وزير دولها وزارة arrimaha dibadda oo waftiga hogaaminaya isaguna munaasabad hadal furitaana ka jeediyay munaasabada ayaa tilmaamay doorka ay China ku leeyahay adduunyada isla markaana uu u daneynayo inuu maalgashi ku sameeyo Soomaaliland waftigan China ee wata warsame marka madaxda gobolkan ku soo dhaweynaya soo dhaweyntoodii waxay hadal oran lahayn inay yahiin naga waan nidhi warnagii warsame waxaan oran lahayn waan u sheegnay waan nidhi isna uu yiri marka sida ugu faraxsan yihiin sheeg marka sidoo kale isaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay barasabka gobolka Saaxil Masa Jamac wuxuu tilmaamay in soo dhaweynayaan safiirka China u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waftiga sharafta leh ee wasiirada dawlaha arrimaha dibadda safiirka China iyo waftiga kale wato magaalada Berbera ay maanta noogu yimaadeen halkaanu taaganahay waa dekadii magaalada Berbera aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gacmo furan baan leenahay waxaan u maleynayaa inay imika dawladaha maalqabeennadu soo daba socdaan oo DB Wall urteedii la daba taagan yahay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa cid kasta oo shirkad oo ama maal gashanaysa ama shirkadaha wax doonaya aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa وحسن فارح قمان عبد عمر مجيبي تلفزيون قرن كصوماليلاند dekada Berbera